موضوع maanta oo ah mid aad u xiiso badan waxaan ku soo qaadan doonaa hal abuurka kacaanka cusub ee taleefanada Tesla mulkiilaha shirkadaha Tesla Boring Solar City OpenAI Elon Musk ayaa in muddo ah ku taamay hirgelinta hal abuuro cusub oo ka duwan samaynta baabuurta bayteriga ku shaqeysa ee ay shirkadda Tesla soo saarto. Tesla waxay soo saartay 500 oo kun oo gawaari ah sanadkii la soo dhaafay 2020 taasoo ka horeysa marka loo eego shirkadaha kale Volkswagen iyo Toyota. Qiimaha suuqa ee Tesla ayaa dhaafay 1 trilyan oo dollarka Mareykanka ah kadib heshiis ay la gaartay shirkadda kale ee gawaarida soo saarta Hertz. Saamiga shirkadda ayaana kor u kacay 12.6% waxayna noqotay runtii shirkadda shanaad ee gaartay guushan. Waxaana horay rikoorkan u haystay shirkadaha Apple, Microsoft, Amazon iyo shirkadda Alphabet. Taleefanka Tesla ay soo saartay haddaynu jaleecno iyo waxa aynu ka ognahay suurtagalnimadan casriga ah ee Tesla horaantii 2021 mid ka mid ah naqshadeeyaasha sarsare ee shirkadda Tesla Antonio De Rosa ayaa soo saaray video kaasoo uu ku soo upload gareeyay website-ka shirkadda. Wuxuuna videogaasi shaaca ka qaaday fikirkiisa ku saabsan taleefanka Tesla iyo sida uu u ekaan karo muuqaal ahaan. Iyadoo videoga ciwaan uga dhigay Tesla Model B. Tesla phone ayaa sida ay shirkaddu sheegtay waxa aad loo casriyeeyay dhanka kamerada gaar ahaan lensiga oo inta badan ku shaqada leh qurxinta iyo filter garaynta sawirada, fiidiyowyada iyo wixii lamid ah. Sidoo kale waxay kamerada taleefankan ku xiran awood u leedahay in goob mugdi ah aad ku isticmaali karto adigoo aan wax iftiin ah ama wax light ah aan haysan ama isticmaalaynin. Taleefankan casriga ah ee Tesla waxa uu sidoo kale noqonayaa mid ka mid ah jiilkii ugu horeeyay ee ku shaqeeya cadceedda qorraxda. Waxa uuna dhabarka dambe ku wataa solar system u sahlaya una fududeynaya helidda energy oo muddo ku shaqeyn karo. Sidoo kale dhanka internetka waxa uu taleefankani ku shaqeynayaa Starlink oo ah mashruuc internet oo muddo aan sidaa u sii fogeyn la abuuray ama la qaaday. Mashruucan internetka oo ah mid xawaarihiisu sareeyo ayaa loogu talagalay in uu guud ahaan gaaro meelo kala duwan oo caalamka ah. Waxa kale oo kamid ah arrimaha cajiibka ah in dadka isticmaala gawaarida Tesla ay taleefankooda ka maamuli doonaan marka gawaarida ay wataan. Isku xirka internetka ee isticmaalka dayax-gacmeedka Starlink ayaa xawaarihiisu uu noqon doonaa 210 megabytes ilbiriqsigiiba, taasoo aad uga dhaqso badan taleefanada kale ee 5G-ga ama jiilka shanaad ee la filayo inay suuqyada soo galaan. Marka la barbar dhigo Samsung Galaxy oo xawaarihiisa isticmaalka soo dejintu tahay 56 megabytes ilbiriqsigiiba, halka iPhone 12 iyo 13 ay ku yimaadeen 36.2 megabytes ilbiriqsigiiba. Runtii mana aha mid la sii saadaalin karo xilliga rasmiga ah ay suurtagalka tahay in taleefanadan casriga ay suuqyada soo galaan ama la soo daayo. Waxaana jirta hadalhayn badan oo ah in la sii dayn doono bilowga sanadkan 2022. Su'aalaha kale ee aan weli laga jawaabin ayaa ah qiimaha rasmiga ah ee suuqyada uu ku soo gali doono taleefankan Tesla Model B. Ma mid qiimo ahaan taleefanka tufaaxa ka sarreyn doona iyo in kale? Waana su'aasha ugu weyn ee inta badan isticmaalayaasha maankooda ka guuxaya. Inkasta oo ay quality-ga ama tayada shayga ku xiran tahay qiimaha uu suuqa ku soo galayo, ayaa haddana rajadu u badan tahay in taleefanka Tesla uu hoos u dhigi doono qiimaha tartanka suuqa. Waqtiga ayaana inoo sheegi doona. Dhanka kale mid ka mid ah cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford James Babel ayaa bilaabay tijaabo oo ciwaan uga dhigay Black Hot 2020. hadafkiisuna dabcan waxa uu ahaa in uu muujiyo sida ay u fududahay dabcan in la jabsado macluumaadka inta badan la isugu gudbiyo dayax-gacmeedka, taasoo saameyn xoogan ku yeelan karta halganka iyo xusul duubka ay shirkadda Tesla ku jirto. Si kastaba ha ahaatee waxa muhiim ah in la xuso Antonio De Rosa naqshadeeyihii aan hore u soo sheegnay in uu kaliya ku daabacay naqshadiisa barta uu ku leeyahay shabakadda Twitter-ka. Waxaana jirtay mashaariic badan oo uu hadda ka hor soo bandhigay laakiin noqon waayay kuwo miro dhal ah. Ugu dambeyn jiilka cusub ama taleefanadan waa kuwo runtii xamaasadooda wata, waxaana in badan oo isticmaalayaasha iPhone-ka ka mid ah ay diyaar u yihiin in ay bedelaan iPhone-kooda. Waa haddii Tesla Model B noqoto mid tayo ahaan ka sarreysa qiimo ahaanna ka hooseysa taleefanka tufaaxa ama loo yaqaan iPhone-ka. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato channel-keena, waxaan naga xasuusinayaa inaad subscribe garayso, siina share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan. Mahadsanid.